madaxweynaha wadankaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa go'aankii madaxweyne Donald Trump magaalada Qudus uga aqoonsaday caasimadda Israa'iil waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid meesha ka saaraysa wada hadaladii nabadda ee bariga dhexe. madaxweynaha Ruushka ayaa waxa uu hadalkaasi ka sheegay magaalada Ankara ee caasimadda wadankaasi Turkiga. Mr. Putin ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan xilli uu soo gabagabeynayay booqasho uu ku joogay bariga dhexe. madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale waxa uu cambaarayay go'aanka madaxweyne Donald Trump waxaana uu sheegay Mareykanku inuu yahay mid dhiig faraha la gelaya. Erdogan ayaa ku tilmaamay Israa'iil inay tahay mid argagixisa isla markaasina Falastiiniyiinta ay askarta Israa'iil dileen ay yihiin kuwa shuhada. warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in kulanka Erdogan iyo Putin uu noqonayo kulankii sideedaad ay wada yeeshaan sanadkan gudihiisa. xiriirka Turkiga iyo Ruushka ayaa sii xoogaysanaya tan iyo wixii ka dambeeyay afgambigii military ee dhicisoobay ee ka dhacay wadankaasi Turkiga sanadkii 2015.